Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta qiimaha lahow kusoo dhawaada Higgs Technology oo aad barakateen inay idiin soo gudbiyaan muuqaalo xiiso leh oo ay ugu horeeyaan graphical design iyo video editing. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbinaa muuqaalo dhiirigelin ah iyo kuwo badan oo ku saabsan tiknoolajiyadda. Maanta hadduu alla idmo cashirkeena waxa uu ku saabsan yahay sida Facebook cover loogu sameeyo 3 daqiiqo wax ka yar adigoo isticmaalaya Adobe Photoshop. sida idin sheegaba maanta waxaa idiin soo gudbin doonaa sida loo sameeyo Facebook cover adigoo isticmaalaya Photoshop wax ka yar 3 daqiiqo. Aan soo kicino Adobe Photoshop. Then waxaad tiraahdaa file kadibna waxaad tiraahdaa new. Sida caadada Facebook coverku wuxuu ka kooban yahay 851 oo widthka iyo 315 oo height-ga ah. Kadib intana magaciisa ku qor Facebook cover. Okay markuu sidan kuugu soo kaco pageka projectiga waxaad tagaysaa paint tool. Kadib halkan ayaa kasoo bilaabayaa click. Kadib inta ayaa imaanayaa sidaas ayaa u jiidayaa kor. Kadib hoostan ayaa tagayaa mar kale sidaas ayaa leeyahay. Intaa markaa sameeyo waxaa sameynayaa wareeg waxaa ku xirayaa midka ugu horeeyay. Intaa kadib waxaan tagayaa backgroundka qaybtan hoose. Qaybta backgroundka ayaa ku dhufanayaa. Waxaan leeyahay file kadibna waxaan leeyahay replace. Kadib waxaa soo gelinayaa sawirkan meesha aan kasoo dejiyay descriptionka hoose ayaan idin dhigayaa linkigiisa. Kadib sidaa ayaa u weynayaa kadibna waxaan leeyahay calaamadda saxda ama enter. Okay inta markaa sameysid waxaad tagaysaa qaybtan kan ayaa click ku siinaysaa. waxaad leedahay control J oo micnaheedu yahay duplicate. Kadib midka hoose ayaan ku dhufanayaa labadooda laba xabo ayay noqdeen. Click ayaan leeyahay kalarka ayaa ka bedelayaa xoogaa yar. Kadib wax yar ayaa hore u sikinayaa. Marka sida hore uu sikiyo kadib halkan ayaa imaanayaa ellipse tool ayaa soo dooranayaa. Marka ellipse tool soo doorto qaybtan hoose ayaa imaanayaa meeshan ay ku qoran tahay new ayaan leeyahay click. Kadib halkan ayaa imaanayaa waxaa sawiranayaa ellipse tool. sidaas marka u sawirtid waxa u sameynaysaa stroke color ayaa u sameynaysaa white ayaan dooranayaa. Stroke colorka inta waa kasoo dooran kartaa sidoo kale. Kadib waxaa kordhinayaa awoodda stroke ilaa iyo 3. Okay maxay qabataa marka stroke-gan haddana mar kale ayaa inta tagayaa new ayaa leeyahay. waxaan leeyahay text waxaa ku qorayaa logo. macnaheedu waxay tahay meeshan waxaa laga rabaa inaad soo gelisid logada. Okay aniga hadda ma soo gelinayo logo laakiin waxaan sheegayaa qaab design-ka ayaa ku sheegaya oo kaliya. Okay intana waxaa ku qorayaa restaurant 9. intana waxaa laga rabaa inaad ku qortid specification 1 2 3 ilaa waxaa rabtid ayaa gaarsiin kartaa adigoo duplicate ku sameyn kara. intaa markaa sameysid qaybtan hoose maxaa loo isticmaalaa qaybtan hoose ayadana waxaa loo isticmaalaya waxaa la dhaho social media Facebook iyo waxaas. Okay kadib halkan waxaa ku qoraysaa magaca Facebook. kadib sidaa markaa sameysid waxaad tagaysaa halkan toolska meesha ku jiraan shapeska kadibna line ayaa soo qaadanaysaa halkan ayaa soo dhigaysaa lineka colorkan meesha shape colorka caadiga fieldiga ever ayaa ka dhigaysaa. stroke ayaa tagaysaa waxaad dooranaysaa white. Okay intana waxaa ku qoraysaa location waa la yaqaanaa saan filaayo waxaa ku noqon meeshaas. locationka waxaa waaye meesha ay ku taalo qaxda ayaa inta ku qoraysaa. halkan specification waa badin kartaa adigoo click ayaa ku siinaysaa adigoo alt oo soo jiidaysaa. then intaas markaa dhameysid sidaas ayuu ku dhamaaday design-kaaga. nameka specification-kaaga waxyaabaadka aad gadid kadib inta waxaa ku qoraysaa social media-haaga iyo location-ka meesha ku taal. haddii aad telefoon ku bedelinaysidna adiga ku jirta logadan halkan aad soo dhigaysaa. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan. subscribe channelka hala saaro
siina share gareeya insha allah asxaabtiin.